madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray dalka Qatar halkaas oo ay si diiran ugu soo dhaweeyeen amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani iyo qaybo ka mid ah golihiisa wasiirada. Madaxweyne Farmaajo iyo Amiir Thani ayaa kulankooda uga hadlay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin si xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal iyo qodobo kale oo badan. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka mahad celiyay taageerada iyo mashaariicaha wax ku oolka ah ee had iyo jeer ay ka helaan dowladda Qatar. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo kamid ah wafdiga hogaaminaya madaxweynuhu ayaa ka waramaya kulankii dhexmaray labada hogaamiye. Assalaamu calaykum. maanta waa taariikhdu tahay 30 bisha 11 sanadka 2021 waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo socdaal shaqo ku jooga dalkan Qatar oo kulan la qaatay amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. madaxweynaha iyo amiirku kulankoodan waxay iskula soo qaadeen dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Qatar iyo sidii loo dardargelin lahaa iskaashiga labada dal iyo labada shacab. madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu amiirka uga mahadnaqay dowladda Qatar mashaariicda wax ku oolka ah ee ay ka fuliyeen dalkeena oo ay ugu horeeyaan mashaariicda wadooyinka isku xidhaya Muqdisho Afgooye Muqdisho Balcad iyo Jowhar kuwaas oo run ahaantii aad iyo aad u dhiiri gelinaya dowladnimada Soomaaliya. waxa sidoo kale ay dowladda Qatar ka fulisay mashaariic wax ku ool leh oo wax weyn ka taraya kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka dowladnimada dalkeena. amiirka dowladda Qatar dhankiisa waxa uu uga mahad celiyay madaxweynaha jamhuuriyadda in uu ka soo qayb galay waqtigan oo laga furayo dalkan Qatar ciyaaraha koobka kubadda warkan iyo warar kale oo xiiso badan waxaad ka bogan doontaa channelkayaga Runta TV oo had iyo goor ku soo gudbin doona warar sugan oo xaqiiqo ah.